weli waxaa socda weerarkii ay xalay al-shabaab ku soo qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho waxaana gudaha hotelka laga maqlayaa rasaas goosgoos ah oo ay adeegsanayaan kooxda soo weerartay hotelka iyo sidoo kale ciidamada amniga oo doonaya inay soo afjaraan weerarkii ay xalay al-shabaab ku soo qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho weerarkan oo noqonaya weerarkii ugu horreeyay al-shabaab ay ku qaadaan hotel ku yaala magaalada muqdisho tan iyo 15 May markii mar labaad loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hogaamiyo Soomaaliya ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay weerarkan waxa ku geeriyootay dad ka badan 15 qof tira intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida ay noo xaqiijiyeen laamaha amniga iyo sidoo kale kooxda gurmadka degdega ah laakiin ka tirsan laamaha amniga oo Universal la hadlay waxa ay noo xaqiijiyeen in ay qarka u saaran yihiin inay soo gabagabeeyaan weerarkii ay xalay al-shabaab ku soo qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho waxayna sidoo kale sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee soo weeraray hotelkan sida ay noo xaqiijiyeen hay'adaha amniga waxa sidoo kale ciidamo la soo dhigay dhammaan jidadka soo gala wadada lambar 4 ee magaalada muqdisho si loo adkeeyo amniga goobta uu weerarku ka socdo loona badbaadiyo badqabka maxamed ibraahim bulbul Universal TV مقدشو